Assalaamu calaykum kusoo dhawaada janalka maalmaha. Waxaan idin soo gudbinaynaa qiso mudan ku cibro qaadasho. Laba wiil oo dhalinyaro ah oo u dhalatay dalka Sacuudiga ayaa waxay ka soo baxeen magaalada Madiina waxayna u soo safreen dalka Turkiga ayagoona doonaya inay halkaasi ku soo dalxiisaan qamrina ku soo cabaan. Markii ay gaareen magaalada Istanbul waxay iibsadeen dhalooyin qamri ah waxayna degeen hotel ayagoona ku fikiraya inay halkaasi ku soo tuntaan qamrigoodana ku soo cabaan iyada oo la ogeyn. Markii ay soo iibsadeen qamrigii ayay waxay raaceen taksi waxayna tageen hotel. Markii gudaha ay u galeen hotelka ayaa waxaa soo dhaweeyay ruuxa fadhiya meesha soo dhaweynta wuxuuna ku yiri xageed ka timaadeen. Waxay yiraahdeen waxaan ka nimid magaalada Madiina oo ah halka uu rasuulka kaleey salaatu wasalaam ku aasan yahay. Ninkii ayaa aad u farxay maadaama ay ka yimaadeen meesha uu rasuulka kaleey salaatu wasalaam ku duugan yahay. wuxuuna dejiyay qol aad u wanaagsan oo heer sare ah isagoona ku darajeynaya rasuulka kaleey salaatu wasalaam una muujinaya jaceylkiisa. Labadii wiil ayaa aad u farxay waxayna degeen qolkii halkaas ayayna waxay ku bilaabeen in ay habeenkii oo dhan cabayaan qamrigii ilaa mid ka mid ah labadoodii uu aad u saqraamay. Waqti yar kadib waxa ay maqleen albaabkoodii oo la garaacayo. Labadii wiil mid ka mid ah oo markaasi meerkiisii joogo ayaa baxay oo albaabkii tagay wuxuuna furay albaabka isagoona hal il isku hayo oo indhaha si fiican u kala qaadi karin. Wuxuuna arkay ninkii fadhiyay meesha soo dhaweynta markaasaa ninkii wuxuu ku yiri imaamka masjidka wuxuu diiday inuu salaadiina dushiyo markii uu ogaaday inaad ka timideen magaalada Madiina oo ah halka rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu ku duugan yahay hotelkana aad degan tihiin. sidaa darteed waxaan idinku sugaynaa masjidka dabaqa afaraad ee hoose ee halkaasi imaada. wiilkii ayaa aad u naxay wuxuuna u tagay saaxiibkiis wuxuuna ku yiri war waan ceebaysanahay ee wax qur'aan ma xafisan tahay. wuxuu ku yiri ugu jawaabay anigu imaam ma naqan karo maxaa yeelay ma aqaan qur'aan. waxay ku fikireen sidii ay dhibaatadan uga bixi lahaayeen. waxa mar labaad ku soo laabtay ninkii oo ku yiri idinka ayaan idin sugaynaa soo dhaqsada salaadiisa naga tagin. wiilkii wuxuu galay suulida qubeys ayuu isku soo boobay kadibna uu soo degtay wuxuuna soo galay masjidka. markii uu soo galay ayuu wuxuu arkay masjidka oo aad u buuxo waxaad moodaa inay tahay maalin jimcaha. kadib wuxuu galay salaadii wuxuu u noqday imaam wuxuuna bilaabay inuu akhrinayo suuratul faatiha. markii uu bilaabay alxamdulilaahi rabbil caalamiin dadkii masjidka oo dhan waa ay ooyeen ayagoona xasuusanaya masjidkii nabiga kaleey salaatu wasalaam. wiilkii isagana wuu ooyay wuxuuna ku akhriyay labadii ragco suuratul faatiha iyo suuratul ikhlaas maxaa yeelay ma uusan xafisanin qur'aan kale. markii ay salaadii dhamaysteen ayaa dadkii ku soo xoomay ayagoona u duceynaya maadaama ay xasuusiyeen rasuulka kaleey salaatu wasalaam ayna ka yimaadeen meesha uu ku duugan yahay. balse arrintani ayaa waxay sabab u noqotay in ay labadan wiil soo toobad keenaan xumaantii ay ku jireen ay ka soo laabtaan. wiilkii salaada dusheynaya wuxuu noqday daaci dadka ugu yeeray diinta. kadib markii uu ahaa ruux xumaanta ka shaqeeyo ayaa Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu bedelay inuu noqdo ruux wanaagsan. subxaanallah alle wuxuu hidaayad siiyaa ruuxa uu doonayo. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha fadlan subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. mahadsanid.